السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkayga muslimka ah iyo walaasheeda muslimka ahi ma doonaysaa inay noloshaadu isbedesho? waxaan kula wadaagi doonaa talo iyo nasteexooyin kuwaasoo ka caawin doona wax badan inaad noloshaada guul gaadho. haddaba ku soo dhawow Warfaa Media to you. talada koobaad ama nasteexada koobaad, ma doonaysaa inay noloshaadu isbedesho? ka faa'iidayso waqtigaaga oo ha dayicin. halka minutaad haysataa wuxuu ka qiimo badan yahay malaayiin dollar. haddaba ka faa'iidayso waqtigaaga oo ha dayicin. waqtigu waa hantida dhabta uu qofku haysto. hantidaada dhabta ma aha lacagtaada, ma aha ubadkaaga, ee waa waqtigaaga. ka faa'iidayso halkaaga daqiiqo oo ha dayicin. dhammaan bini'aadamka oo dhan way ka siman yihiin waqtiga. qof walbaaba wuxuu haystaa saacad ka kooban 60 minut, habeen iyo maalin ka kooban 24 saacadood, iyo sanad ka kooban 12 bilood. haddaba waxa lagu kala duwan yahay qof walba si uga faa'iidaysto. haddaad doonayso inay noloshaadu isbedesho, ka faa'iidayso halka daqiiqeed sheekaynayso, ka faa'iidayso halka daqiiqeed qof la hadlayso, ka faa'iidayso halkaaga daqiiqo ha dayicin. talada labaad ama nasteexada labaad, ma doonaysaa inay noloshaadu isbedesho? mar walba la imo dadaal fara badan. qofka guulaystay iyo qofka guuldaraystay marka qadarka laga yimaado, farqiga u dhaxeeya waa dadaalkay la yimaadeen. haddaba haddaad doonayso inaad dadka ka hormarto, mar walba la imo dadaal fara badan. haddaad doonayso inaad dadka ka hormarto, haddaad doonayso kanaad noqoto qof walba hiigsado, haddaad doonayso kan lagu daydo, haddaba dadaal fara badan la imo. noloshaadu way isbedeli doontaa. haddaad maanta dadaasho, beritoole way fiicnaan doontaa. laakiin maanta haddaad dadaali weydo, beritoole way xumaan doontaa. talada saddexaad ama nasteexada saddexaad, ma doonaysaa inay noloshaadu isbedesho? haddaba noqo qof axsaan sameeya oo dadka wanaag u samee, si adiga beritoole wanaag lagugu sameeyo. haddaad maanta xumaan samayso, beritoole ayaa adigana xumaantaa lagugu samayni. haddaad wanaag samaysana, beritoole ayaa adigana wanaagga lagu samayni. midhahaad maanta beeraysaa waxay noqon doonaan mustaqbalka midhahaad goosan doonto. haddaba iminka midho fiican beero si aad mustaqbalka u goosato midho qurux badan oo aad u macaan. iska ilaali inaad noqotid dadka xumaanta beera, oo noqo kuwa wanaagga dadka fara, xumaantana ka reeba. saas ayay diinteennuna faraysaa. talada afraad ama nasteexada afraad, ma doonaysaa inay noloshaadu isbedesho? haddaba noqo qof naxariis badan oo mar walba dhoolla cadeeya. waxaad noqotaa qof wejigiisu furan yahay. waxaad noqotaa qof dadka ka farxiya. ha noqon ninkan qalabsan ee dadkao dhan ka cadhoodaan. ha noqon ninkan wejigiisa laga cabsoodo, ee noqo qof wejigiisa lagu farxo, qof wejigiisa naxariis ka muuqato, qof u naxariisa kan taagta daran iyo kan miskiinkaaba. haddaad doonaysa inay noloshaadu isbedesho, isku day mar walba inaad u naxariisato dadka taagta daran iyo masaakiinta, si adigana lagugu naxariisto beritoole markaad weynaato. nasteexada shanaad ama talada shanaad, ma doonaysaa inay noloshaadu isbedesho? walaalkayga muslimka ah iyo walaasheeda muslimka ahey, ma doonaysaa inay noloshaadu isbedesho? haddaba ha ka tegin salaadaha oo ilaali. 5 salaadood iyo sunnayaashooda ha ka tegin, waayo waa xadhiga isku kinaya adiga iyo Allah subxaanahu wa tacaala. haddaad doonaysa inay noloshaadu isbedesho, 5 salaadood ha ilaawin. isku day mar walba inaad ilaaliso salaadaha. noloshaadoo dhan way isbedeli doontaa. Allah subxaanahu wa tacaala wax walba ayuu ku ilaalin doonaa. isku day mar walba inaad salaadaha ilaalisid. walaalkayga muslimka ah iyo walaasheeda muslimka ah ee dhegeysanaya, fadlan fariintan faafi oo walaalka iyo walaasha khayrka la wadaag.